Gudaha fog ee galbeedka qaaradda Afrika, dhulka ballaaran ee saxaraha iyo dhul-biyoodka lahaa, waxaa ka jiray boqortooyada magaceeda la ilaaway. Waa boqortooyada maanta ciiddu ay kasoo sara martay. Waxay ahaayeen xarunta dahabka iyo foolka maroodiga. Awood iyo hanti meeshay ka gaadheen, badi boqortooyinkii dunidu kama aysan gaadhin. Eyda ay wataan xataa qoortooda waxaa sudhnaa waslado ka samaysan dahab saafi ah. Boqortooyada Wagadu, sidoo kalena loo yaqaanay boqortooyada Ghana, waxay fadhiday galbeedka Afrika, gaar ahaan qayb ballaaran oo ka mid ah dhulka maanta la yidhaahdo Koonfur Bari Mauritania iyo galbeedka Mali. Boqortooyadani qiyaastii waxay soo bilaabatay qarnigii 3aad, waa 201 ilaa 300 markay taariikhda miilaadiga ay ku beegnayd. Boqortooyadani waxaa caasimad u ahayd Kumbi Saalix, oo ahayd magaalo aad u qani ah. Magaaladani waxay ku taalay dhulka maanta Mauritania la dhaho. Laakiin arrinka la yaab kale wuxuu ahaa in magaaladani ay kala lahayd 2 qaybood oo kala go'an. Qayb waxaa deganaa qoomiyadda Soninke oo ahaa dadkii asaasay madaxdana ka ahaa boqortooyadani Ghana. Dadka qaybtan degani waxay haysteen diin ay iyagu dhaqan ahaan gaar u leeyihiin, waxaana halkan ku yaalay qasriyada boqortooyadani Wagadu ay leedahay. Halka qaybta kale ay ahayd dhinaca ay deganaayeen dadyowgii Carbeed ee kasoo jeeday Bariga Dhexe. Dadkan waxaa qaybtan la deganaa dadyowgii kale ee Berberka la isku odhan jiray ee deganaa waqooyiga Afrika. Marka labadan qowmiyadood ee Carabta iyo Berberka ahi muuqaal ahaan way ka duwan yihiin Afrikaanka kale. Diin ahaanna waxay ahaayeen Muslimiin, waxayna ahaayeen dadkii ganacsiga la lahaa boqortooyadani Ghana. Boqortooyadani waxay isku fidisay qaybihii ugu muhiimsanaa galbeedka Afrika, qayb saxare ah iyo qayb biyo leh. Waxay xarun ka dhigteen godadkii dahabka ugu badani ee qaaraddani Afrika ay ku jireen. Intii boqortooyadani jirtay, waxay ganacsi xoog badan la samaysteen ganacsatadii Carbeed ee xarunta ka dhigtay waqooyiga Afrika. Waxaana kala dhexeeyay ganacsi marka aad u fiirsato aan cadaalad shuqul ku lahayn, laakiin sadbursi iyo dhac ku salaysnaa. Ganacsatada Carbeed ee xaruntooda ahayd dhinaca waqooyi ee qaaradda Afrika waxay boqortooyadani Ghana la lahaayeen ganacsi ka gudba saxaraha ballaaran ee u dhexeeya waqooyiga iyo galbeedka Afrika. Ganacsatadani waxay maryo tolan, cusbo, qalab bir ka samaysan iyo fardo ka keeni jireen dhinaca waqooyiga Afrika. Waxay soo raran jireen awr xoog badan oo midkiiba uu rar badan qaadi karo. Tirada awrtaasi halkii safar waxaa u dhexeeyay 1,000 ilaa 10,000 oo neef oo geela. Waxaa safarkaasi wehelinaya ciidan milatari ah oo ahaa xukuumadihii kala dambeeyay ee Umawiyiinta iyo Cabaasiyiinta inta safarkan dhexda kusii jiro. Maadaama dhulku saxaro kulul yahay, waxay isticmaali jireen qaab u sahlaya in safarku nabad ku gaadho galbeedka Afrika. Socodka waxay bilaabi jireen bilaha qabobaha ee 10aad ilaa 3aad u dhaxaysa. Inta ay dhexda kusii jiraanna waxay isku beegayaan meelaha biyaha leh, halkaasi ayayna kusii hakanayaan, biyahana kasii qaadanayaan. Safarkani wuxuu qaadanayaa 40 ilaa 60 maalmood iyo habeenadoodii. Marka ay soo gaadhaan galbeedka Afrika, alaabtii ay wadeen waxay kusoo bedelanayaan dahab, foolka maroodiga iyo dad nool oo addoommo ahaan ay usoo kaxaysanayaan dadyowgan ganacsatada Carbeed ahi. Laakiin arrinka la yaab kale wuxuu ahaa marka ay soo gaadhaan galbeedka Afrika, si ganacsigaasi laysu dhaafsado alaabtana loo kala bedesho, waxaa halkani ka jirtay dhibaato weyn oo dhanka luqadda ah. Maadaama aysan jirin luqad ay isku fahmayaan labadan dhinac, waxaa jirtay qaab ay u kala bedelan jireen alaabaha. Marka ay ganacsatada Carbeed soo gaadhaan galbeedka Afrika, waxay imanayaan goob lagu sii ballamay. Goobtaasi markay yimaadaan waxay dejinayaan dhammaan alaabihii ay waqooyiga Afrika ka soo rareen ee awrtooda saarnaa. Alaabtaasi dhammaan dhulka ayaa lagu warayaa. Marka shayga u dambeeya dhulka lasoo dhigo, ganacsatadan Carbeed waxay tumayaan ama garaacayaan durbaan aad u cod dheer. Ujeedka loo tumayo durbaankanina waa baaq ah inuu safarka yimi. Marka ay durbaanka tumaan, alaabta halkii ay taallay ayay kaga tegayaan, waxayna aadayaan dhinaca kaynta oo ah dhankii ay ka yimaadeen, halkaasi ayayna ku maqnaanayaan. Ganacsatadii galbeedka Afrika ee boqortooyada reer Ghana, maadaama ay durbaanka maqleen, waxay ogaadeen in safarkii uu yimi. Waxay soo qaadayaan alaabtii ay ku bedelan lahaayeen oo uu ugu horeeyo dahabka iyo foolka maroodiga. Waxa ay soo gaarayaan halkii alaabtu taallay, waxa ay eegayaanna alaabtii. Markaasi
ayay dahab iyo fool maroodi u dhigma safarkaasina dhigayaan dhulka halkii alaabta kala taallay. Marka ay dahabka iyo alaabtii ay wadeen sidaasi ku dhigaan, waxay ku noqonayaan dhankii ay ka yimaadeen oo dhinaca kaynta ayay sidaas iyaguna ku aadayaan. Intaasi kadib waxaa soo laabanaya ganacsatadii Carbeed oo dhanka kaynta ka soo baxaya. Waxay eegayaan alaabtii ay keeneen kuwa galbeedka Afrika. Haddii ay ku qancaan alaabtaasi, waxa ay tumayaan durbaanka mar kale oo la micno ah isfahan ayaa dhacay, alaabtiina waanu idinka guddoonnay. Haddiise ay ku qanci waayaan oo ay saluugaan dahabka iyo foolka maroodiga meesha lasoo dhigay, iyaga oo aan tumin durbaankii ayay mar kale ku laabanayaan dhinaca kaynta. Ganacsatadii galbeedka Afrikana waa ay fahmayaan, sidaasi ayayna ku soo laabanayaan oo mar kale dahabkii iyo macdantii sii kordhinayaan. Sidaasi ayayna dib ugu laabanayaan. Marka ay yimaadaan kuwii Carbeed oo ay ku qancaan dahabka iyo foolka maroodiga halkaasi lasoo dhigay, waxay garaacayaan durbaanka. Heshiiskaasi sidaasi ayuu ku dhacay. Alaabtii dahabka iyo foolka maroodiga lahayd ayay awrtooda ku raranayaan. Markaasina waxay aadayaan dhinacii ay magaalada caasimadda ka deganayeen, iyagoo markaasi halkaa kasii bilaabaya safarkii saxaraha ay kusii marayeen ilaa fadhiisinkoodii waqooyiga qaaradda Afrika. Nidaamkani wuxuu ahaa mid kalsooni iyo is-aamin ku salaysan. Labada dhinac midkood haddii uu khiyaamo sameeyo, heshiiskii oo dhammi sidaasi ayuu ku burburaya. Ganacsigan galbeedka iyo waqooyiga Afrika u kala gooshaya waxaa faa'iidada ugu badan ku qabay ganacsatadii Carbeed oo ka hoos shaqaynayay dowladihii Islaamka ee Umayyadeed iyo Cabbaasiyiinta. Ganacsigaasi halkii safar wuxuu gaadhayaa ilaa 10,000 oo neef oo geel ah, kuwaasi oo ah geel awood badan oo mid kastana uu xamuul badan qaadi karo. Bal qiyaas 10,000 oo awr oo lagu raray dahab iyo foolka maroodiga, badnaanta dahabkaasi u yeelan karo. Halka dhinaca kale laga soo rarayo maryo, biro, cusbo iyo bisbaasyo. Hanti badnaantii boqortooyada Ghana waxay u saamaxday ganacsatadii Carbeed iyo dowladihii Islaamka ee kala dambeeyay ee Umayyadeed iyo Cabbaasiyiinta inay noqdaan kuwa adduunka ugu tunka weyn. Waxay gaadheen heer boqortooyooyinkii reer Yurub, iyagoo raba inay dahab iyo macdan helaan, inay Umayyadeed iyo Cabbaasiyiinta u keeni jireen addoomo laga keenay dhinaca qaaradda Yurub, asalkooduna yahay Yurubyaan. Addoomahan waxaa loo keeni jiray si boqortooyinka reer Yurub u helaan dahab iyo macdan. Boqortooyadani Ghana waxay xukumaysay oo cashuurta ka qaadaysay dhammaan ganacsiyada maraya dhulka ballaaran ee galbeedka Afrika oo ay ahayd tan ugu tunka weyn. Boqortooyadani maadaama ay haysatay godadka dahabka ugu badani ku jiraan, waxay sidaasi qaab ganacsi ku samaysay hanti aad u badan. Waxay dhiseen magaaladoodii caasimadda ahayd ee Kumbi Saalix. Waxay ka dhigeen xarun ganacsi. Waxay dhiseen ciidan awood badan oo sababay in ganacsatada Carbeed iyo dowladihii Umayyadeed iyo Cabbaasiyiintu aanay isku dayin inay dhulkani qabsadaan ama ay weeraraan. Waxay ahayd boqortooyo dhaqaale ahaan iyo militari ahaan awood badan leh. Laakiin nasiib darrooyinkii qaaradda Afrika ka dhacay oo ahaa kuwa aan indhaha laga qarsan karin, waxay soo taxnaayeen ilaa bilowgii taariikhda aadanaha. Qaaradda Afrika oo ahayd halkii ugu qanisanayd dahabka iyo macdanta ugu badanna ay taallay. Marna boqortooyinkii ka talinayay qaaraddani oo ay ka mid ahayd boqortooyadani Ghana kama aysan fakerin qaab qaaradda Afrika loo horumarin karo, khayraadkeedana lagu xadido gudaha qaaradda oo laga ilaaliyo in si fudud lagu gacan geliyo dadyowga shisheeyaha ah. Boqortooyadani Ghana iyo kuwii kale ee ka jiray gudaha qaaradda Afrika waxaa dhex mari jiray dagaallo. Dagaalladaasina waxay ku kala qabsan jireen maxaabiis. Laakiin maxaabiistaasi dagaalku marka uu dhammaado, xorriyadoodii ma aysan heli jirin. Taa beddelkeedana waxaa sida alaabta looga gadan jiray ama looga iibsan jiray ganacsatada Carbeed oo iyagu markaasi waqooyiga Afrika ilaa bariga dhexe u sii iibgeyn jiray dadkaasi iyagoo addoomo ahaana. Dadkaasi wax xuquuq ah kuma aysan lahayn halka la geeyo, oo ahayd dhulkii Islaamka ka talinayay, gaar ahaan dowladihii Umayyadeed iyo Cabbaasiyiinta. Addoomaha waxaa loo adeegsan jiray in laga dhigto askar, in beeraha lagu falo, in dhulka lagu qodo, in kuwooda dumarka loo galmoodo iyagoo aan la guursan, oo markaasi sharcigii dhulka Carbeed ka jiray uu oggolaa ninku inuu gurigiisa keensan karo addoon, addoontaasina uu markuu doono u galmoon karo. Ogow, addoontaasi ma aysan ahayn kuwo ka soo jeeda dadyowgii Carbeed ama waddamadii kale ee qaaradaha adduunka ku yaallay, ee waxay ahaayeen
kuwii laga keeni jiray galbeedka qaaradda Afrika, ilaa markii dambe bariga Afrika addoomaha laga soo guri jiray, oo sidaasina dhulkii Carbeed iyo bariga dhexe loo iibgeyn jiray. Dhacdooyinkan addoonsiga ahi waxay dhacayaan boqolaal sano ka hor inta aanu gumaystihii reer Yurub ama gumaystihii reer galbeedka ahi soo gaadhin gudahani qaaradda Afrika. Addoonsigan iyo tagrifalkan loo geysanaya dadyowga Afrikaanka ah waxaa samayn jiray ama geysan jiray dembiyadaasi ganacsatadii iyo dowladihii Carbeed oo iskaashanaya, ama ganacsatadii Carbeed oo ka hoos shaqaynaya dowladihii Umawiyiinta iyo Cabbaasiyiinta oo ahaa xukuumado Islaam ah. Haddii aad ilaa halkan la soo gaadhay, ha ilaawin muuqaalkan inaad like saarto, sidoo kalena channelkeena soo raacsi qaybaha dambe ee muuqaaladeena aad u hesho. Nabadgelyo.